waxaan kusoo gabagabeynaa hadalka dadka Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad u firfircoon dhibaatooyin badan waa qabnaa laakiin si hadii loo fiiriyo dad geesiin baan sababtoo ah qiso yar baan ii sheegayaa Alberta markaa u tagi jiray arrimaha dhalinyarada oo la dilayo waxaa jiro gobolka Alberta Canada waa wadan federal ah sida Mareykanka marka waagii aan Alberta tagay nin oo journalist ah baa Soomaalida wuxuu ka qoray maqaal qaldan uusan qofna kala tashan maqaalkii baa marka ka jawaabnay jawaabtiina waxaa u dirnay xildhibaanada gobolka Alberta markaas loo yaxtaa ma ahayn ardayba marka ninka oo xildhibaanka Alberta gobolka Alberta baarlamaanka ku yaala ra'iisul baarlamaanka gobolka Alberta baa noo yahay annagoo Soomaali ah wuxuu yiri inaan iyo arkaano marka warqadda waxaan dirnay Isniinta Arbacaduna marka soo galnay buu su'aal buu weydiiyay wuxuu yiri xafiiskan hadda taagantihiin ma taqaanin waqtiga ay ku qaadato qofka inuu appointment aniga ila yeesho markaasaan yiri may markaasuu yiri 3 bilood ay ku qaadataa macnaha maanta hadda qof uu yimaado u dhaho inaa ra'iisul baarlamaanka waa inaan arko 3 bilood ka bacdi ayaan chance la siinayo sababta schedule-kiisa aad u buuxa laakiin wuxuu yiri idinka Isniinta hadalkiina maqlay Arbacadana anaan niga codsaday inay ii timaadeen sababta ma taqaana ma yaandiri wuxuu yiri sababta waxa waa yiri 7-meeyadii baa waxaan arki jiray dad Soomaaliyeed oo scholarship ku yimid oo wadankii Soomaaliya ka yimid oo Canada Alberta imaan jireen waxbay ka baran jireen way laaban jireen wuxuu yiri marka 7-meeyadii aan arki jiray dan muddo adiga 20 sano ma arkin diin waa ku diin marka hadda waxaan arkay inaad haddana Soomaaliya soo laabateen marka waxaan rabaa inaan arko okay okay وانا عرفت سو maxaa noo sheegaysaa wuxuu yiri waxaan waa inaan ii sheego waan la yaabanahay uu yiri geesinimadiina wuxuu yiri wadanka wax yar aad joogtiin laakiin already waraqada baarlamaanka u dilaysiin journalistiyaasha iska celinaysiin annagii baa challenge nagu haysiin gudiyadii baarlamaanka danaha expert ahaan usoo istaagteen doorasho u tartamaysiin wallahi wuxuu yiri geesiin baa taa yiri annaga wuxuu yiri dadka aan ka dhashay 3 generation uu qaatay inaan macallin iskuul noqono idinkana hal generation gudihiisa baarlamaanka albaabadiisa garaacaysa marka runtii geesinimada oo Soomaalida iyo firfircoonanta wax weyn waayo oo wax badan la tari karo laakiin waxa la rabaa marka geesinimadaas iyo energy-gaas in loo leexiyo meesha saxda ah meesha saxdana waxa waaye walaalayaal inaad gashiin every hay'ad oo mas'uul idinka niga ah for example hadaa waalid tahay ilmahaaga iskuul dhigtaan iskuulka xubnaha laga xukumo gal hadii aad truck driver tahay association-ka truck drivers-ka boardkooda gal markaas go'aanada truck driver-ka laga gaaro miiskeeda fadhida hadaa miiska ka maqan tahay waa lagu cunaa ma miiska ku jirtaa